sidaad ka dhagsan tihiin website-kan la yiraahdo warshadaha.com waxaad ka helaysaa macluumaad aad u fara badan sida aan soo sheegnay sidaad isku diiwaan gali kartid website-kan waa si fudud just waxaad soo qaadanaysaa taleefankaaga opera ayaad galaysaa waxaad ku qoraysaa warshadaha.com meeshaas waxaad ka helaysaa macluumaad tira badan waxa ognahay aan la soconaa website-yada sidaan oo kala ah in dadka ay uga baxaan lacag tira badan kuwa qaar waxa laga yaabaa in $200 lacag ka badan sanadkii dadka laga qaado waxaan ugu bishaareynaa ummadda Soomaaliyeed website-kan inuu ka macluumaad badan yahay kana raqiisan yahay waxaad isku diiwaan galinaysaa lacag 2,000 shilin ah oo Kenya shilin ah ama $20 oo intaas oo kale ah marka waxaan ugu baaqayaa Soomaalida dhamaantood ganacsatada inay iska diiwaan galiyaan si fudud qiimo jaban waliba waxa uu sii dheer inay wax ku barayaan website-kan luqadda af Soomaaliga haddana af Soomaali aqoon wax laga yaabo dadka inay luqadda Ingiriiska badan website ku baxaan inay qofta garanaynin marka waxaan ka xaqabtireynaa maxaa la dhahay website-kan oo dadka ka xaqabtiraya luqadda af Soomaaliga ayaa dadkii wax lagu barayaa marka ganacsigaagana si fiican buu hormarayaa waxyaalo badan ka helaysaa qiimaha waa ka jaban yahay waana ka macluumaad badan yahay waxaan ugu baaqayaa marka dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inay la soo xiriiraan oo iska diiwaan galiyaan si macluumaad badan iyo horumar badan u sameeyaan waad mahadsantihiin soo dhawaada inta kale waxaad kala xiriiri kartaa telefoonka shaashada ku qoran haddii aad u baahan tahay inaad la soo xiriirto oo kale warshadaha.com telefoonada shaashada ku qoran waad kala soo xiriiri kartaa si aad u heshid wax badan ama maxaa la dhahay information badan oo gasidna oo soo wici kartaa lambarada shaashada ku qoran waadna soo wici kartaa waadna mahadsan tahay dhammaan soo dhawaada kusoo dhawaada warshadaha.com sidoo kale waxaad ka heli kartaa kala xiriiri kartaa baraha bulshada sida Facebooka, Instagramka, Twitterka dhamaantood waad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan warshadaha.com